ha segnato Franchesè, bella palla data indietro, arriva che si di destro, la mette sul primo السلام palo. عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا فانتاستيك سبورتس تيمبو إني سوق البيو قارضها يوروب وهيك cusub iyo wixii kale inta wakama dariga oo Yurub oo dib u kagacsan oo ba caadi ahayn oo lagu soo afjaray sanadkii 2021 hadda loo sii gudbi doono sanadka soo socdo haddii ay bakraalnado 2022 ayaa ciyaarihii Talyaaniga lagu soo afjaray wareega 19 oo ciyaar kul dhex martay kooxda AS Milan iyo Empoli ayaa ciyaarta lagu qabanay garoonka Empoli Milan oo ciyaartii hore looga adkaaday gurigeeda saalo socono oo ka adkaatay Napoli hal eber waad ka ayaa dhacday sanadkan ayaa dhacday gamekan laazim waa ina arto Inter soo u fakan ayaa Farankiisi goosha koowaad u dhalshay isla markiina Empoli ayaa soo barajeysay barajada markay dhacdanay kiisi ayaa diiday ilaa oo ka dhashay gool dambo Albertaraha ayuu ku dhahay ciyaartii oo Napoli ayaa iga diiday gool waqtigii ugu dambeeyay la kalkan laakiin hadda diidi karta did ayaa xidigeer Afrikos u dhashay ayaaba ciyaar kulul la soo baxay oo u baahan inuu dib loogu jadiidiyo heshiiska oo kooxda Milan kula jira hadda oo hal sano kaliya ka dhiman yahay oo naadiyal badan ay ku doonayaan oo ka dhisan Premier League saa loo socono Arsenal iyo Chelsea sida loo sheegay iyo Liverpool ayaa goosha koowaad ayuu u dhashay Farankiisi ma wadaahinbo Di sinistra sale Mecresteo che sì, gol! Ha segnato Franchesè, bella palla data indietro, arriva che sì di destro, la mette sul primo palo alla destra di Vicario, 1-0 per noi. ayuu ciyaarta ku soo afjarmatay 2-4 ay Milan u adkaatay kooxda Empoli 4-2 halkaasi 2021 kuma salaamaysay ayadoo ku jirto kaalinta labaad oo laga horeeyo 4 dhibac Mr Pioli oo taagan laakiin 2022 taariikh baa dhigi doona waan sugnaa waxiiba ahaataba sanadka cusub waa sugi doona happy new year ayaan ileenahay happy new year sawir socodii ciyaaradaasi u dhayn talaada iyo waxay kala dhaceen arbacada Udinese iyo Salernitana ayaa baaqday Genoa iyo Atalanta waxay galeen ay ku heshiiyeen eber Juve oo ku adkaatay 2-0 oo adkaatay Cagliari Sassuolo iyo Bologna waxay ku dhamaatay Bologna ayaa ku adkaatay 3-0 Venezia iyo Lazio ayaa ku guuleysatay 3-1 Verona iyo Fiorentina waxay ku heshiiyeen inay galaan 1-1 iyo Inter oo adkaatay Torino 1-0 Roma iyo Sampdoria baraja galeen Milan wata haddana soo tabinaba waxay ka adkaatay Empoli 4-2 Napoli oo idna xalka ka sii xun yahay ayaa dib u naqashooyin sameeyayso waxaana ka adkaatay kooxda la Spezia markay u adkaatay 1-0 oo Napoli lagu garaacay garoonkeeda Armando Maradona waan garanay aad soo soconno ciyaaraha waxa hoggaanka hayo Inter Milan oo 46 dhibac ku wadato Milan 42 dhibac ay wadata Napoli 39 saddeysiyadna Atalanta ayaa wadato 34 Juve ayaa wadato 32 Roma ayaa wadato goolasha waxa hogaamiyayo Dusan Mihajlovic xiddiga ciyaar Fiorentina oo 16 gool ku hogaaminayo iyo Ciro Immobile 13 gool leh oo ciyaar kooxda Lazio wata nishan natiijooyinkan sida dhaceenbo hadda halkaan ugu sii gudubno Serie A Italia isbuucan ka dhacday waxaan u sii dhaadhici doonaa dhanka iyo koobka Ingiriiska ayaa isku aad kulul la sameeyay markii soo wada baxeen ba 4 koox oo adag oo Premier League Chelsea iyo Tottenham ayaa la dhahay dib isku salaama isbalqaabila is arka allahay iyo Liverpool iyo Arsenal dib isku aadiyay wallahi semi-final oo kulul ayaa ka dhacay meeshaas Chelsea iyo Tottenham yaa soo bixi doona nihayga intaay Liverpool iyo Arsenal ayaa nihayga soo bixi doona markii Liverpool si cajaa'ib leh soo baxday ee uu soo fakatay kooxda Leicester City isku aad kulul waa kulli waa sugnaa ma dheero sidoo u dhici doonabo laakiin ciyaar kulul waa oo caadi ahayn kalkan koobkan lafaal iska garaac waa lafaha iska shidoo بل ياخذ جول سدونه ميلنر والكرة العرضية وضربة ضربة مينامينو oo ku badbaaday rigoorooyinka markay u adkaatay Leicester City 5-4 ayaa ciyaar kulul meeshaas ku dhex martay oo la yaab leh oo caadiba ahayn ay Liverpool saas u soo baxday semi-finalka
waan gartay ciyaaraha kalentana say u kala dhacaanba waa kana Arsenal oo afka u galisay Sunderland ayay 5-1 uga badisay Tottenham Hotspur oo iyadna ku badisay 2-1 oo uga badisay kooxda West Ham. Brentford iyo Chelsea ayaa ku soo baxday 2-0 wataani soo tabana Liverpool iyo Leicester ciyaartii caadiga ba ahayn oo rigoorada ku adkaatay Liverpool. isbuucan intaas oo kana wixii oo la kulanay oo nisoo gudbi karnabo idinkana dhankiina yaa nagala baqiilin subscribe-ka iyo like-ga intaba noogu dadaala ayaan leenahay si guulooyin la yaab leh wada gaari doono haddaan nahay cailada fantastic